kulanti wanaagsan daawadayaal soo dhawaada halkani waa bogeyga Facebook ee Cabdicasiis News waxaa soo baxay warar sheegaya in markaa la taliyay hore amniga qaranka soo noqday agaasimihii hore ee hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka ee NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir inay markaa gabi ahaanba ay kala boodeen sidoo kalena arrimaha siyaasadda iyo xiriirkii kale ee ka dhaxeeyay gabi ahaanba uu soo afjarmay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo warqad qoraal ah oo uu soo saaray agaasimihii hore ee hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka sidaas oo kalena soo noqday la taliyay amniga qaranka Farmaajo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir waxa uu ku sheegay in gabi ahaanba uu soo gabagaboobay xiriirkii siyaasadeed iyo isbahaysigii siyaasadeed ee kala dhaxeeyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qoraalka ka soo baxay Fahad Yaasiin waxa uu ku sheegay in haatan wixii ka dambeeya taariikhduna ay tahay 1 bisha Sebtembar 2024 gabi ahaanba aanu jirin isbahaysi siyaasadeed iyo xiriir dhanka siyaasadda oo ka dhaxeeya isaga iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Fahad Yaasiin waxa uu tilmaamay inuu go'aan ku gaaray gabi ahaanba inuu soo afjaro xiriirkii dhanka iyo isbahaysiga arrimaha siyaasadda ee kala dhaxeeyay xisbigii hore ee nabad iyo nolol si gaar ah ninkii hogaamiyaha u ahaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qoraalkan oo dad badan oo Soomaaliyeed fajaci ama ka ku noqday ayaa waxa uu ka soo baxay agaasimihii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo la taliyay hore ee amniga qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir sida muuqatana qoraalka waxa ka muuqatay gabi ahaanba inay isku xumaadeen sidoo kalena uu dhamaaday xiriirkii siyaasadeed ee u dhaxeeyay isaga iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ninkii lagu naanaysi jiray milkiilaha dawladda marna ahaa ninka ugu awoodda badan arrimaha siyaasadda iyo amniga Soomaaliya Fahad Yaasiin Xaaji Daahir waxa uu tilmaamay inuu go'aan ku gaaray gabi ahaanba inuu soo afjaro isbahaysigii siyaasadeed iyo xisbigii uu ku jiray ee nabad iyo nolol uu qaybta ka ahaa sida muuqata qoraalkiisa waxa kamid ah in markaa haatan wixii ka dambeeyay uu sameyn doono la tashiyo sidoo kalena uu dad kale sameeysan doono dhanka isbahaysiga siyaasadda iyo asxaab kale sida muuqatana ay kala boodeen Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynihii hore ee Soomaaliya arrintan waxa loo arkaa dhabarjab kale oo xoog leh inay ku tahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaasi oo markan u muuqanaya inuu noqon doono agoon siyaasadeed sida muuqata iyadoo hore xubnihii ugu muhiimsanaa xisbigiisa ay ka baxeen xisbiga waxaana hore xisbiga kaga baxay علي عبدي ورداري oo dadku u yaqaanaan cali yar cali ninkaasi oo mar ahaa ninka ugu muhiimsan xisbiga nabad iyo nolol qaban qaabin jirana arrimaha isbahaysiga siyaasadda banaanbaxyada iyo sidoo kale taageerada dhanka baraha bulshada waxa mar kale dhabarjab ku ah Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu maqlo arrinta la xiriirta inuu garabkiisi baneeyay garabkiisi midig saaxiibkiisi rafiiq siyaasadda Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo sida muuqata sheegay gabi ahaanba inuu soo idlaaday isbahaysiga siyaasadeed ee kala dhaxeeyay isaga Maxamed Cabdullaahi Farmaajo doorashada la filayo Soomaaliya inay ka dhacdo sanadka 2026 ayaa waxa muuqanaysa in markaa ay soo bixi doonaan shakhsiyaad badan oo xisbiye gaar ah wata sida muuqatana Fahad Yaasiin waxa uu qorsheenayaa inuu yagleelo xisbi gaar ah oo uu doonayo inuu markaa la noqdo isbahaysi siyaasadeed Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isaga kaliya ayaa ku soo haray haatan nabad iyo nolol sida muuqatana waxa uu wajahayaa firaaq dhanka siyaasadda iyo isbahaysiga xilli uu maanta garabkiisa baneeyay mid ka mid ah xubnihii ugu muhiimsanaa xisbiga nabad iyo nolol Fahad Yaasiin Xaaji Daahir lana aaminsanaa inuu ahaa milkiilaha xukuumaddii Farmaajo wixii warar ku soo kordha halkan ayaad ka daawan doontaan insha Allah daawadayaal